rabno waan jilicsannahay madaxweyne ayuu ku tartamaya kursiga u muuqdee dhibaatada Soomaaliland war ma ka haya ma eegaya ma og yahay nabadgelyan doonanaa mudaharaad ma rabno muuse waa macaan waa malab la dhigay oo la mudsaday qabiil kaliya madaxnimo ma ka dhigi karaa maanta waxa weeyaan kursiga ka fadhiyo baa fadhiyaya gobolka Gabiley iyo degmada Togoo Jaale midna afoofa oo mudaharaad sameeyana wax aan ka aqbali karo weysinaya cida caruurtoodu ku dhimanayso wadanku waa inaga labadan inay macaaridkii caruuri kama joogto aan la hadlaynaa waxaanu leenahay bulshadii baad qaybisay dadkii baad foodo ku beertay bulshooyinka magaalada ganacsiyeedka degmada Togoo Jaale ayaa si weyn uga soo horjeestay haraadyada ay ku baaqayaan xisbiyada mucaaridka Soomaaliland waxaana ay sheegeen in maanta guud ahaan shacabka Soomaaliland ay nabad u tahay maadaama ay ku jiraan abaaro iyo sixir bararo waxaana xisbiyada mucaaridka Soomaaliland ku tilmaameen kuwa aan dan iyo muraad ka lahayn shacabka dhibaataysan ee Soomaaliland aan la hadlaynaa waxaanu leenahay bulshadii baad qaybisay dadkii baad foodo ku beertay adduunyadii baad kala furfurtay kani waa reer hebel iyo kani waa reer hebel baad badisay war maad ogeyn dalka wixii ka dhacay war maad ogeyn qabadinkii dulcad war maad ogeyn daarihii burburay war maad ogeyn duunyadii la dhacay war maad ogeyn dibadii aanu naalay war waxaanu ku leenahay annagu waxaanu nahay hooyooyinkii dalka soo halgamay kuwii ragoogii hogaga lagu guray kuwii xabaal waradeeda loo sameeyay ee imikada qaar ku jiraan kuwii ku waayay dadkoogii iyo dalkoogiiba war waxaanu ku leenahay maad ogeyn nalamaad joogin dibadaad ku cabaysay liinta dalka ha naga furfurin haya war hinaas ayuu ku dilin dad maraayadu ay ku jabin war waad masayrtay ku soo noqo miiska nabadda war dumar iyo caruur baanu nahay dadka iyaga meesha taagan mudaharaad ma rabno lulul ma rabno dadku wuu tiifaysan yahay ma doonayno nin aan dhagax hadii la tuuro aan waxba kaga dhaawacmaynin kaca oo siida afoofa oo mudaharaad sameeyana wax aan ka aqbali karo ama agtayada ka dhici kara ama aanu taageeri kara maaha waxa weeye ninku kolkuu ubadkiisa horta keeno koyga kolkuu kiisu yimaado kayga hala wada dhaawaco waan qaadanaya laakiin kaygiina waan fogaatay kaagana xabadda isku dhigo adeer xabad la isku dhigo tii faqash baan ku dhammaan weynay ma noqonayso gobolka Gabiley iyo degmada Togoo Jaale midna diyaarna uma nihin mana dhacayo dalkan adeer waan u soo halganay waan u soo dagaalanay dhiig iyo dhacaan baa nagaga baxay hanti baa nagaga baxday inay yaro qurbaha xaaskiisii joogo oo caruurtiisii joogo maanta iskuulada waxa ku jira caruurtaydii baa ku jira ka dhaawacmaya waa caruurtaydii weeyaan kiisa qurbuhu kaga yimi marka inay yaro qurbaha caruurtiisii kaga yimi annaga kuwa ayaga isku odhan maayo maalin walba xabada isku dhiga labadan inay macaaridka hor kacaya fiilan bay joogan caruurtoodii annagana caruurteedii jaamacadaha iyo iskuulada dhiganaysa ayaa soo baxa la leeyahay oo loo tumaya narsaan moogtahay adduunka jiro shaytaan weysinaya cida caruurtoodu ku dhimanayso wadanku waa inaga labadan inay macaaridkii caruuri kama joogto waxa weeyaan waxa iman doonta moogtahay booliskii iyagoo isku dhaca ciyaalka yareeroo isku dhaca moogtahay barimageeda waxa weeyaan wadanka rabshadaha laga daayamanoona dadka waalidiintan waxaan oolaa caruurtiina meesha ka hagaajisa la hadlayaa miyaad aragtay qof intuu madaxweyne doonayo Soomaaliland ila waxaan ka qabanayaa mudaharaad annagu nabadgelyan jecelahay annagu nabadgelyan doonanaa mudaharaad ma rabno madaxweynuhuna xilligay u gaadhaa la yaalam laakiin ma kursi baan doonayaa ciyaalaha iskuulada noo dhigta nabadgelyo fiican baan haysanaa wax mudaharaad oo doonanaa annagu ma jirto cirra la hadlayaa kidalkayga iyo diinta ii xajow kidalkayga iyo diinta ii xajow kii abahay daldalay kii dilayayow kii dhaawacme dhiigga ii hurow muuse waa macaan waa malab la dhigay oo la mudsaday madaxweyne ayuu ku tartamaya kursiga u muuqdee dhibaatada Soomaaliland war ma ka haya ma arkaya ma eegaya ma og yahay shicibku wuxuu ku nool yahay ma og yahay farbu nin waliba ku yimid nin walba farbu ku yimid far hadduu ku yimid dadkii farta laga doonaya halkay mareen halkay ku maqan yihiin halkay joogaan maxay ku nool yihiin
maxay ku nool yihiin inaad qabiil baad sheeganaysaa xalay qabiil kaliyihiin madaxnimo ma kaa dhigi karaa nin madax doonaya waa ninka bari iyo galbeed kii u madaxa ee u hadla ma doonaysid madaxnimo mudaharaadkaad maanta dhigaysaana waa ku beena haddii aad doonaysa inaad gobol yar maamusho xamar baa laga maamulaya xamar baa tegi farna lagugu ridi maayo dan iyo muraad toona cidi kaama leh maad gasabsan iyo habaryoonis iyo hilinka reeysa tan iyo gadabuursi iyo guriga ciisaya innagoo isku duuban baan daacad noqon karnaa innagoo isku duuban baan dawlad heli karnaa waxa weeyaan maanta mudaharaad uma baahnin dhibaato uma baahnin carqalad uma baahnin nin kursi doonaya uma baahnin maanta waxa weeyaan kursiga kaa fadhiyo baa fadhiyaya waxa weeyaan dadkeennii baa dhibaataysan bar baa ku faqasha baan u malaynayaa ciroy bar faqasha hadaad noqoto horta waa ayaan daro waxa weeyaan doqoni isha walaasheed ma aragto hal waliba geeleeda waa ku boqol